فيوبي سماها كمدوهني دايا أركتدا فيوبي سماها كمدوهني قرنك الاسم يا أركان غدا قحيقة يا أركان لما يصير ما يا أركان ولا قد شيء أركان نمعي أنا لك بي أركان قرنك الاسم يا أركان غدا قحيقة يا أركان لما يصير ما يا أركان ولا قد شيء أركان نمعي أنا لك بي أركان دايا أركتدا فيوبي سماها كمدوهني دايا أركتدا فيوبي سماها كمدوهني قرنك الاسم يا أركان غدا قحيقة يا أركان لما يصير ما يا أركان ولا قد شيء أركان نمعي أنا لك بي أركان قرنك الاسم يا أركان غدا قحيقة يا أركان لما يصير ما يا أركان wadadii maxamuud yaasiin tumey road oo degmadu ugu magac dadhay maxamuud oo ahaa duqii hore ee magaalada Gaalkacyo alxamdulillah wadadan waa 800 mitir waxay ku soo gabowday maalmo kooban shaqadan waxay ahayd shaqo dadka community-gaana ay ka qayb qaateen degmada ay ka qayb qaatay iyo GBLG-ga oo ay ka qayb qaateen shaqada ayaga iyo aylo waxaan rabnaa wadadan inaan dhirayno bilowgeeda ilaa dhamaadkeeda waxaan rabnaa inaan dhir ku taxno haddii rabbi idmo markii loo qaybiyo mitiraadkeeda waxaa gelaysa 156 geed waxaa ka go'i doonta 156 geed 30 iyo dhowr geed oo hadda ku beeran sidaas darteed 120 geed baa gelaysa waxaan rabnaa qof kasta inuu geed sadaqaysto oo awooda haddii alla idmo laba sadaqaysto shirkaduhu ay ka qayb qaataan dadku ka qayb qaataan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyaro hadda oo mar hore isqodhay oo ka mid yahay maxay Cabdiwali Xasan Axmed Cabdirashiid Ruush iyo Faadimo Gaashaan iyo dhalinyaro kale oo ilaa 5 qof oo isqortay oo ugu tala gashay meeshaan inay dhirayso ka Mustafa ahaan dadkaasaan ka mid ahay dhiraynaya oo dhirta la baxaya haddii rabbi idmo mar labaadna shirkadda isgaarsiinta Somtel baa iyaduna qayb ka noqon doonta haddii alla idmo dhiraynta wadadan shirkadda Kibaarko dhalinyarada meesha taagan madasha nabadda iyo isdhexgalka dud mudug dhalinyarada iftiinka dhammaantood waxaan ka rabnaa iyo dhalinyarada gadiga kalaba waxaan ka rabnaa qof kasta maanta inuu ka qayb qaato wadadaas loo dheerayn lahaa aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xarka wadadan aad u quruxda badan magaalada Gaalkacyo runtii aad baan ula socday dhismaha wadadan sawiradeeda iyo shaqada laga hayay waxaan farxad weyn iyo maanta inaan joogo oo ka soo qayb galo xarkajarkeeda runtii helada walaalkeen Maxamuud Yaasiin Tumey ay joogaan oo aan runtii aad iyo aad ugu ducaynayo in Ilaahay barakeeyo runtii waxay tusaale u tahay in wadooyinka noocan oo kala loogu magac daro dadka haliyada ah waxay dhiirigelinaysaa ka shaqeynta danta guud oo qofku markuu inta kadib dareemayo inay gaarayso wadadan waa sadaqo jaariya runtii in lagu magac daro oo lagu weyneeyana wax weyn bay ka taraysaa shaqadii iyo hawshii uu hayay inta kadib waxaan runtii bulshada Gaalkacyo ku dhiirigelinayaa inay ka shaqeeyaan nabadda isdhexgalka iyo ka shaqeynta horumarka runtii sharaf weyn bay noo tahay inaan goobjoog ka ahaano isla markaasna ay xusno kamid ah mas'uuliyiintii degmada Gaalkacyo soo maray ahaana shakhsi aad iyo aad Gaalkacyo ugu weyn naftiisina ku waayay isagoo ka shaqeynaya danta caamka nabadda iyo horumarka gobolkan iyo degmada Gaalkacyo waxaan kaloo ku faraxsanahay in maanta labadiisii wiil iyo xaaskiisii iyo heladii kale qaybo ka mid ah in ayagu nala joogaan oo markaati nagala ahaadaan waxa ay reer Gaalkacyo ay Maxamuud Yaasiin Tumey u hayaan oo dareen iyo maartay walaalnimo iyo maartay xus ah aad iyo aad baan u faraxsanahay Maxamuud wuxuu ahaa dadkii magaaladan maartay runtii waqti badan geliyay inay maartay nabad iyo isdhexgal hesho iyo xasilooni hesho maanta halkan aan taagannahay waa laamigii loogu magac daray Allah u naxariisto duqii hore ee degmada Gaalkacyo Maxamuud Yaasiin Tumey
waxaannu leenahay runtii waa uu naga mudnaa in sidaan iyo si ka weynba loo maamuuso waxaan sidoo kale gooni u salaamayaa wiilasha uu ka tegey allah u raxmado cumar iyo cismaan oo iyaguna nagula sugan maantay goobtan aanu xarigga uga jarayno laamigan quruxda badan oo ka mid ah laamiyadii horumarka ahaa ee ka socday gaalkacyo maalmihii u dambeysay ama isbuucyadii iyo bilihii u dambeysay runtii laamigan aanu taagannahay waxaa la geliyey juhdi weyn waxaa la geliyey wakhti aad u badan oo ay gelisay oo aan uga mahad celinayno marka koowaad ilaahay oo noo suurageliyey maanta inaannu halkaan sidan quruxda badan ugu furno kadibna waxaan u mahad celinaynaa dowladda dhexe ee puntland ugu horreeyo madaxweynaha iyo xukuumaddiisa qaybaheeda kala duwan oo runtii gaalkacyo geliyey wakhti badan oo ay ka mid yihiin horumarkan